waxaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ka soconaya maalintii labaad shir sanadeedkii Soomaalida Koonfur Afrika qaybtiisii gobolkan Western Cape. Shir sanadeedkan oo sanad waliba xiliyadan oo kale lagu qabto dalkan Koonfur Afrika ayaa lagu casuumaa culumaa u diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan iyagoona cilmigooda uga faa'iideeya Soomaalida ku dhaqan South Africa. masjidka sunna ee xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay Bellville oo ah goobta oo hadda muctamarku si toos ah uga soconayo ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan soo buux dhaafiyeen masjidka sunna. waa sanadkii saddexaad oo ay culimadu u yimaadaan faafinta dacwada islaamiga dalkan Koonfur Afrika oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee qaaradda Afrika u soo barakacday. waa kuwan qaar ka mid ah culimada iyo maamulka ururka dacwada ee Albayaan oo iyagu soo qaban qaabiyay shirkani quruxda badan. عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أرضياس وكمل أرض مدرسة السنة نقول أخرى آيات القرآن الكريم جزاه الله خير وبارك الله فيه. سيدنا حضرتك معنا إن شاء الله تعالى حين ويرينا شيخنا شيخ عبد الله عبد الواحد وإن شاء الله تعالى كلمتي مؤتمرة فلتان كذا سير رسمي إن شاء الله تعالى وتفضله. مسؤول منا دينتي سي برنامج فلتان كذا وتحولي بدونها ورالي دينتي سكر كانوا جالسين لي يا محل بغداد مركلة ومحددينا علماء مشايخنا أو نوصل دخلي خير كفراوين أو إن شاء الله إلى كيسان كفائدة دولة كفائدة غير ولا لا ينفع الناس يو علماء دي كمشاهدة سفر كده نوصل كله كني خير نوصل دخان مركلة وحنوما كلنا يا دك خير كتوم. si kastaba ha ahaatee indhaha ka soo qaybgalayaasha ayaa laga dheehanaya farxad iyo soo dhaweyn aad u sareysa waana kuwa xiiseynaya inay cilmi badan ka kororsadaan culumaa u diinka qiimaha ku leh dalka Soomaaliya. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Journal, South Africa.